waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 30 bisha September sanada 2021 ku soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media kadib markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilka ka qaaday taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kuna bedelay General Bashiir Goobe 6 bishan September 2021 madaxweynaha waqtigu ka dhamaadayna uu ka daw magacaabo Yaasiin Fari ayaa waxaa xarunta dhexe ee NISA isku gadaamay ciidan lagu magacaabo Duufaan ciidankan ayaa waxaa isticmaalaya Fahad iyo Farmaajo oo rabay in General Bashiir Goobe xarunta dhexe ee NISA uusan tagin xilkana uusan la wareegin hadduu isku dayana ay xabad kala daalaan oo halka dagaal ay ka qarxiyaan haddaba maxaad kala socotaa ciidankan Duufaan ciidanka Duufaan waa ciidan gaar ah oo aan la marsiinin wadadii ciidamada qaranka lagu qori jiray hindisaha iyo go'aanka sameynta ciidankan waxa iska lahaa Fahad Yaasiin amaba loo yaqaan Abu Camaar Farmaajo iyo Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan waxayna isla go'aamiyeen in dad iyo deegaan gaar ah laga qoro dhanka kalena laga ilaaliyo dad iyo deegaano qaar ah oo aan hal qof laga qorin ciidankani waxa uu si toos ah u hoostagaa Fahad Yaasiin Farmaajo iyo Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan oo sidaa isugu xiga waxay ugu talgaleen inay u isticmaalaan amaba ay ku caburiyaan kuna laayaan cid kastoo caqabad ku noqota amaba ay u arkaan inay caqabad ku noqon karaan danaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee saddexdaas siniin sidii ciidamadii magacyada badnaa ee uu Maxamed Siyaad Bare lahaa ee uu isticmaali jiray ciduu doono iyo siduu doonaba ee uu xukunka ku ilaashan jiray sida hangashtii dhabar jibintii kuwii xisbiga iyo wixii la mid ahaa qoristii ciidankani waxaa loo xilsaaray Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan waxaa ciidankani badankiisa laga qoray beesha uu ka dhashay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday keligii taliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa qoristii ciidankani in muddo ah ay ka socotay guud ahaan gobolka Gedo iyo magaalada Cabudwaaq oo ah deegaanada ay degtay beesha Farmaajo kadib markii intii laga qori karay deegaanada beesha Farmaajo laga soo qoray ayaa waxaa lagu badiyay dhalinyaro si gaar ah loogu qoraya in muddo ah deegaanada Koonfur Galbeed waxaa sidaa loogu gudbiyay Turkiga si ay tababar u siiyaan iyadoo loogu qoray Turkiga sidii inay dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ka soo wada jeedaan oo ay leeyihiin astaantii qaranka iyadoo qof kasta loogu qoray qabiil aan u ahayn balse kooxda Cabdullaahi Kulane Jiis Mariixaan u soo meeriyeen dhalinyaro beelaadka reerka laga qorayay in uu yahay si Turkiga loogu muujiyay inay Soomaalidu u dhan tahay halka xaqiiqdu ahayd inay ahaayeen maleeshiya beeleed laga dhigay ciidan hal reer u badan ugu dambeyntii markii Turkiga soo tababartay waxaa loo qaybiyay oo gacanta loo geliyay hubkii iyo saanadii ugu cusleed ay Turkiga bixiyeen sida beebiyaashii iyo gabaaridii kale ee gaashaaneed ee Turkiga ku huweynaysay ciidamada ay soo saartay maleeshiya beeleedkii ciidanka laga dhigay waxaa loo xulay oo taliye looga dhigay sarkaal iyaga ka mid ah oo ku beel ah Farmaajo ciidankani waxaa hadafkiisa ugu weyn ee loo dhisay uu ahaa in lagu caburiyo mucaaradka dawladda gaar ahaan shacabka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelweynta degan magaalada Muqdisho sidaa daraadeed waxaa laga ilaaliyay hal qof oo ka soo jeeda beelweynta degta magaalada Muqdisho si aan wax damqasho iyo jaxan-jaxa amaba u nuglaashaha ugu galin dadka loo isticmaalayo hadafkii loo dhisay ciidanka Duufaan waa loo isticmaalay waa ciidankii laba jeer lagu weeraray madaxweynayaashii hore ee qaranka sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo hogaamiyihii hore ee golaha shacbiga mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan habeenkii 19 bishii Febraayo 2021 ee ciidanka Duufaan hotelka Maa'ida ay ku weerareen madaxweynayaashii hore iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka waxay halka ku xasuuqeen 11 askari waxaana haboonaan lahayd in magacyadooda iyo sawiradooda ummadda loo soo bandhigo loona xuso sida loo xuso kuwii lagu xasuuqay guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ciidankan Duufaan waxa ay markii saddexaad guryahooda ku weerareen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hoteeladii ay deganaayeen isaga guuray kadibna dhex dhigay reerahooda si ay isugu dhex waardiyeeyaan walow weeraradii ciidanka Duufaan iyo kuwii la socday la iska caabiyay haddana hadafkii taliyaashood waxa waa in ay madaxda wada dilaan ciidanka ilaalinayana ay wada laayaan ciidamada Duufaan waa isla ciidankii xabadaha kala daalay 19 Febraayo 2021 hogaamiyaashii siyaasadda iyo shacabkii ku mudaaharaaday daljirka daasoon muwaadiniintaasi xabadaha lagala daalay waxay gudanayeen xuquuqdooda dastuuriga ah ee ah in isu soo bax nabadeed fikirkooda ku cabiraan waxaana muwaadiniinta isku soo baxay hogaaminaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Xasan Cali Khayre hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame horena u soo noqday wasiir madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo rag kale oo la mid ah markii goobtii lagu kala cararayna waa ciidankii xirtijadadka soo gala daljirka daasoon buux dhaafiyena barta daljirka daasoon markii madaxdii abaabulaysa isu soo baxa ku dhawaaqayeen in weli isu soo baxi uu jiro waxaa ciidankan Duufaan lagu daadiyay dhammaan xaafadaha hogaamiyaasha mucaaradka iyo shacabka taageersan u badnaayeen oo jidcado kasta uga soo baxay haysashada ciidan beeleedkan Duufaan iyo gudoonka baarlamaanka oo jeebka Fahad iyo Farmaajo ku jiray waa waxa ku dhiirigeliyay Farmaajo inuu ku fikiro in uu xoog iyo xeeladba ugu darsan kara 2 sano sharci darro ah markuu ku darsadayna 12 Abriil 2021 ciidanka Duufaan waa isla ciidankii u dagaalamay meelmarinta afgambigii dhicisoobay ee 25 Abriil kaasoo soo gabagaboobay kadib markii saraakiil fara badan oo tacadiyada kooxda Fahad iyo Farmaajo adkeysan waayay
ay go'aansadeen in ay dalka badbaado u noqdaan qarankan hadaanka ka sii dhacaya kuwaasoo furmihii dagaalka ee al-shabaab iyo daacishtii ay hortaagnaayeen isaga soo baxay caasimadana soo galay halkaasoo la isku fara saaray dhimasho iyo dhaawac fara badanna uu ka dhashay halkaasoo shacab badanna ay guryahooda isaga barakaceen nasiib wanaag waxaa halkaasi ku fashilmay afgembigii dhicisoobay ee 25 Abriil ama muddo kororsigii 2 sano ahaa oo hadduu guulaysan lahaa dhidibadu u aasi lahaa dictatorship cid kasta qori afka ka geliya dalkana ku qabsada kuna maamulo qori caaradiisa sidii hore u dhacday marka farmaajo iyo kooxdiisa meesha ay ka baxaan doorashada soo socota hadduu alle idmo waxaa lagama maarmaan noqon doona in ciidanka la kala diro amaba lagu kala diro qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida halka saraakiishiisana loo maxkamadeyn doono dambiyadii ay madaxdii hore ee qaranka iyo shacabka ka galeen iyagoo fulinaya amaro guracan oo aan sharci ahayn oo weliba aanay u haysanin wax qoraal rasmi ah iyagoo qabyaalad shakhsi ku taageeraya dhiigna u daadiya xukunka dalka oo sifa sharci darro ah lagu boobayay hibaaq iyo intii maalintaa la geeriyootay dhammaantood ilaahay naxariistii janno allah siiyo dembigooda allah dhaafo qabrigooda allah u waasiciyo annagana ilaahay nagama dhigo kuwii fidnooba gadaashood runtii hibaaq abuukar horaa loo sheegay waxay ka mid ahayd shaqaalaha ugu kartida badan ugu dadaalka badan ugu wax soo saarka badnayd waad ogtihiin hawsha ay baaxadda leh ee xafiiskan ka waday runtii waa hawl culus oo ku saabsaneed howlaha haweenka ama genderka oo maanta lagu guda jiro doorashooyinka qaybna ku lahayd sidii dumarka Soomaaliyeed qayb muhiim ah oo muuqato ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka dalka ka dhacayo hibaaq naxariistii janno allah siiyo kuwii u geystay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala kii dhibku u geystay kii soo xirxiray iyo kii soo alifayba ilaahay inuu cadaabta ku fogeeyo waxaan rabaa halkan inaan maamo Khadiija Siicow oo ah maamo Soomaaliyeed marna habaryar ii ah aan uga tacsiideeyo gabadheena hibaaq abuukar insha Allah dhamaanteen waa wada soconnaa horta taa in maskaxda la geliyo ayaan rabaa waa meel la wada sugayso cid kasto naga mid ahna maalin ay u hoyanayso marka waa meel ilaahay ka baryayo annagoo tawfiiqda haysano inuu ilaahay na geeyo ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala dhammaanteen hibaaq iyo inta la dhimatay iyo dhammaanteen uu nagu kulmiyo jannatul firdaws awooddaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh marka waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allah inaga siiyo walaasheen insha Allah waa guuleysanaynaa waddankan doorasho u socdaa dadka yar oo isku dayaya inay carqalad naga geliyaan oo argagixisadu ay ka mid tahay waa ka hortagaynaa insha Allah ilaahayna wuu jabinayaa marka hore ha loo socdo qalbiga ha la adkaysto dhammaan ciidamada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ku mahadsan yihiin dadaalkooda iyo kartida ay muujiyaan iyo ka hortagga dhibaatooyinka dhacaya aad ayay u yar yihiin markii loo fiiriyo xilliyadii hore taasna ilaahay mahadiis waxaan rajaynayaa inay dadaalkoodana laba laabaan